waxaan la yaabay Soomaali weynay oo Soomaalideena ee dabeecad ka dhigatay waliba kuwa social media isticmaala qof nool ayay waxay dhahaan waa ay dhimatay hadduu xanuun yar qabto ama madaxa maaragtay ee laga qabto ama maalin uu dhaho waa jirana ama heblaa cisbitaal la geeyo haddii la dhaho horta maxay u dhahaan way geeriyootay igu geeriyooday acuudu billaahi min shaytaani rajiim yaa gabadhi waxaan arkayay koostarliin ahayd oo ku dheganayd naqaska ku dhegay hore neefay qabtaa neefa maaragtay ee qabatay isbitaal baa la seexiyey dad baa kasoo duubay haloo soo duceeyay lahaayeen ilaahay horta waxaan uga baryayaa caafimaad taama walaashay caafimaad taama baaya allah ku siiyo koostarliinay ilaahayna cimri dheer cibaado suuban ha ku siiyo dhammaanteena iyo inta xanuunsan qofka bini'aadanka ilaahay ma ogi inta kasoo harta waa maaragtay makhluuqaa nahay waan qaldoonaa waa laga toobad keenaa wax kastaa dhaca laakiin waaye dhexdaa markay badda iyo xeebta iyo maaragtay ay joogtay ee iska dalxiisaysay waa sida loolahaa saqajaamadiyay waa waray waa kada waa kan dembigii oo dhanba adaa ka ridatay idinkaan caynaay ayaa dembigii ka ritay oo haddana habaaraay gabadhiyo haloo duceey laleeyahay habaar loo daba dhigo way dhimatay waa naf baxday shalayna meeshaasay taagnayd war dadka waa bilaadanaa nahay bilaadankaa wuu qaldoomaa ilaahay buu leeyahay adigu dembigiisa maxaa ula qaybsanaysaa idinkaaba caynaay idinkaa maaragtay ee qofka bilaadankaa maaragtay hawada kasii tuuraay yaa maalin hore waxay soo dhigta iyadoo oo dhehayso ooynaysa maaragtay tiktokgaygiyaa layga xiray waa kaasaa waa lay daba dhigtay cadow waan leeya waxyaabo noocaasay lahayd marka waxaad tiraahdeen maxaa la dhihi jiray ayadoo naqaska ku dhegan oon aragno inay cisbitaal jiiftaa waxaad tiraahdeen way isyeelyeelaysaa naqaskaa laygu dhejiyay tiri bahalkiiay soo gadatay war ilaahay ka cabsada dadka lama habaaro lama caayo ma garateen cadowtinimada intaas la ega qofka walaashiin u qabtiin ama walaalkiin ha noqdee maxay tahay sababta loo habaara ama loo caynaa ma ii sheegi kartiin qofka hadduu dhinto iyo hadduu uu maaragtay uu xanuunsan yahay intaba duca uu inka mudan yahay maahane lacaga ku raadinaysi way dhimato waa waraba dad waxaan arkayay wiil ee sawirro la soo gashay inta soo saarteen faceka hore maaragtay youtube-ka ama hadday noqoto facebook ama tiktok-ka misana rabaan inay u duceeyaan gabadhiyo cawradeedii qaawan madaxeedii qaawan garbaheedii qaawan wiil baa saa u sida maxaa u reebatay haloo duceeyaad leedahay qofka inaad cawradiisii gabar walaashaaba kula dhalatay waadna dhali doontahay hooyadaa oo kala waaye calaashaan hooyo waaye dumar hadday yartahay hadday weyn tahay intaad sawiradeeda soo qaadatay yaad ku soo sharaxatay taytalka kusoo dhedhegsatay meesha saroo oo bictureka aa soo saaratay maxay ka dhigan tahay waad sii ceebeynaysaa waxaad rabtaa dadka inaad kusii kicisiin qofka sawiradiisa caadiga ama iyadoo cistaal ku jirta ama iyadoo caadi waa soo dhiga micnaha waa kusoo dhegsan kartaa laakiin gabadhi waa taa way xanuunsan tahay asagoo ninkii sida oo shalay lagu caynayo waad soo saaratay maxaa u reebatay maxamaad u reeba laana adoo ku raadinayo views waa dadka kasoo hadlay misana soo saartay gabadhi ayadoo wiil sida waxay isku yihiin allahu aclam walaalkeed la dhashaa ma qabaa ma maaragtay muxuu iya abtiya ma adeerkeeda annagoo iska dambownaa hadda gabar oo social media ku jirto oo waxaan aqaanaa wiil yar oo aabbaheed dhalay hadda aabbaheeda u dhalay iswad wataanoo mar walba isla joogaan alla cunug yaray ka qaraabanee alla kii horaa ay kala tageen kanbay naf ka raadisay waa dheela cun waa heblaayo anna waan garanaa oo waan aqaanaa marka qofka dadka bini'aadanka laguma dambaabo wuxuusan ahaynna lagama sheego hadda maanta dacani inta lasoo fariisto walaalkay ila dhashay hooyaday aabbey macaan ii dhalata halkan maanta lasoo fariisto maxaa i dhahaysiin alla ninay keensatay alla way waalata ama walaalkay alla far ciyaaray ama sheekaysanayna ama maaragtay isla qaraaxaysanayna ama riwaayad isla dhigayna ama haddaan doonno subcinayna haddaan doonno quraan akrinayna aan social media la soo istaago waad ii bedelaysid
tii dhilay noqotay way halowday waa sida muxuu iya maabtigee meelo dhasha ma adeerkayba ma awowgayba dadka ayagoo yaray waalid isku noqon karaan ya ama wiila habaryar oo inta alla soo istaago oo walaashii weyn dhashay maxaa leeyahay biri waa dheela cun haa wiil yar bee la timi aliileeya sax marka dadka ku dambaabina aniga waxaan maqlayaa Esther Kurlibaax gabar dhaysa qaraabaan nahay wiilka saa u siday tiri waa walaalkeed bay tiri salaadana kama jabiyay lahayd ma fahamta walaalayaal oo dambiga iska daayay oo xitaa ka riboodeen muxuu ahayd TikTok-geedi la'aan wiilkaas sida wiilku muxuu u yahay saan waxaan baarsay waa walaashiis laga yaabaa iyadoo yar inuu saxarada kusoo dhaqan jiray oo iyadoo xanuunsan u gargaari jiray ayadana sidoo kale ma garatee marka walaalayaal ilaahay ka cabsada gabadha waad habaarteen waad cayseen waad riboodeen wax kastaad ku samayseen idinkaaba ciil bidoon naqaska ku dhajiye misana isbitaal jiiftaa xitaa guri maaha dad baa waxay ku leeyihiin weeba fadhida ayadoo kursi ku fadhido bay maaragtay oxygen-ku ku xiran yahay qof fadhiyo oxygen ku xiran maxay tahay teeda kale hadduu miirka ka tegay waayo indhaheeda banaanka u taala sas uu kala qaaday war xanuunkana meel ma jiro naftuna meel ma jirto ma garateen naftuna meel ma jirto arkayseen ajakis allaha u naxariistee iyo dad badan oo kale ma asagoo saan u taagan istaag ka faneen annaga laftirkeena hadleena meelna loo soo jiro allahu a'lam ilaahay baa garanaya xilli la dhimanayo ilaahay nooma sheegin balse laakiin in la dhimanayo noo sheeg qof walbana saacadiisu dhimanaya cid wax loogu darayo cid wax looga jarayo ma jirto qof walba dambigiisa iyo camalkiisa ayuu Allah subhanahu wa ta'ala uu la hortagayaa balse laakiin toobada ilaahay waa ay furan tahay ilaahu tooba hataa tiraahid oo daacad ee ka noqoto ilaahay wuu ku cafina ilaahay waa naxariiste qof aan dambi gelin intaas ba Allah ka dhigay ma jiro qof saalix oo ma aragta la leeyahay dambi ma gelin nadiif waa ma aragta muxuu ahayd ceeb ka salin wala leeyahay ma jirto aadana leeyahay qof baa la xaman been baa la sheegay waa maar dad bay dhacayaan dadkii Mooriyaan ay noqonayaan qaarkood dadkay dhacaan qaar waxaan ku dhawaatuugo qaar waxaan ku dhaa sharciya sameynayna inta ku dhaana iska daw marinayaan waxyaabo badan iska jiro marka laakiin yaa daranaate qofka xaqa ka qaadatay ama ka gashay ama xaday ama dhiig muslim adiga aadanaha waxa aad ku sameysay ilaa uu qofkii inta u tagtid waliba waxa aad ku sameysay aad u sheegto oo cafi aad tiraahdid ma ogi ilaahay horta dambi qofka gash kuma dhaafaayo marka laakiin ilaahay dambiga laga galo waa uu cafiyaa ma garateen marka idinkaan ooliyada iska dhigaaya ee gabadha habaarayo misana caynayo ilaahayna u noqda gabadha aan u duceynaga mudan tahay qof kastoo xanuunsan bari waa u baahan kartaa adaa soo seexana halla ii duceey intaas oo qofna de ilaahay qaar buu aqbalaa qaarna ma aqbalaayo dadka ilaahay isku mid jiro saddex meel iskugu toban meel iskugu imaado ma dhacaysa inaan la wada aqbalin dadka waa wada muslim waa wada tukanaa gebigeena marka walaalayaalo wasarliin wallahi waa ka gardarantiin gabadha loo duceeyo ilaahay abaayaha ku caafiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala naqaskana ka soo fujiyo waan ku arkaa waan ku jeedaa qof xanuunsan oo isbitaal yaalo oo faleen basuranya oo naqaska baalka oxygen-ka lagu xiray oo waxaan ku ilaa u jeedid oo saas loo kordhooban yahay bay ku leeyahay saliyeeleysa waa beenteed waa sidan waa kan way dhaqan xun tahay maadaa dhaladay dhaqan xun tahay daawaanaysa loo ogol u sheeg publica la soo fariisanay marka walaalayaal gabadhaan u duceeyno abaaya Allah ku caafiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku caafiyo dad cadow iska jira Allah ka qabto ma garat cadow meelo badan u galay ilaahay anaga dhanba naga qabto insha Allah biidnillah kariim si sheer gareey walaalahaygan jeclahay walaasheena ilaahay ka qaada xanuunka qof walba habeen ama maalin ama qof aan xanuunsanin adduunkan if kan saaran aanan xanuunsanin oo dhibanaynin ma jirto laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa gafkeena geerideena inuu Allah subhanahu wa ta'ala uusan kulansin ayaan ilaahay weydiisanaynaa ma garatay marka walaalayaal gabdhahan waxaan jeclahay dumarkeena inay is asturaan wax ka fiican mana timihi iyo qaawan videogaaga la qaadana ma qoortaadiyo qaawan gacmaha balbalka banaanka yaalo naasi iyo xabadkiyo ma arka jisinka qabtid xitaa loo jeedo oo banaanka yaalo adduun wax ka xun malahan ma garatay walaalayaal
sii sheergareeya abaaya allah ku caafiya adigana biidni illaahi kariin caafimaad taam ilaaha ku siiyo